السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه لهانتين باقيارتا wadana kala socotay halkani waa dayax warar media waa mar kale iyo qayb kamid ah qasooyinkii Allah u naxariistay shahiid Gani Calaar waana qaybtii saddexaad waxayna inoo mareysay wiilkii oo meeshii kaga imaaday oo biyo u doonay haddaba saan idin sheegay waan ka soo dhaqaaqay jihada iyo dhinaca iga jira tuki tarafaad xaalkaygu waa nafi orod bay kugu aamintahay aal iyo cid toona ma garanayo laakiin Allah subxaanahu wa ta'ala baan tala saartay waxaan soo ordaba waxaan ku soo dhaadhacay laag yar oo tuga tarafaad ku darta hoos baan ula sii laabtay waxaan sii socdaba markaan marayo meesha ay kaga darto ayaan ku soo baxay meel biyo ah oo oday intuu adhi ka waraabsaday adhigii uu dareerinayo ama uu fulin rabo dhiigaygu yaala waa diyaabi oo wiilka dhiigiisii baa maryahayga wada buuxshay oo ruuxii arkaa uuba iga carari odaygu wuxuu gacanta ku haystaa caag biyo ah oo uu dhaansaday anigoon biyihii dhadhamin yaan odaygii ku yidhi adeer caagaysi wiilan halkan kaga soo tegay baan biyo ugu geynay durbana waan kuu soo celinay odaygii intuu qoslay uu igu dhahay adeer soo ma aragtid inaan adhigii dareeriyay haa baan ku yidhi waaban fulay caagan ku siin maayo wax kala sheeg buu dhahay waxaan ku yidhi alla adeer oo meel fog baad moodi waaba geedkanune bal kaale aan ku tusee meesha wiilku joogo ilaahay amarkii markaan saa ku yidhi aan xagga fiiriyay isaguna kor fiiriyay baan aragnay geed garas ah oo hoostiisa waxay taagan yihiin aad ruux moodo xitaa labisku waa ruux caadi ah waxaana sidhi malahaada lagu soo diray waxaana hubaa inuu ilaahay khayr ii soo diray waxaan ku yidhi adeer soo ma aragtid geedkaas wiilku hoos taagan yahay wuxuuna igu yidhi haa markaas baan ku dhahay wiilkaas baan u geyno durbo waan kuu soo celin markaas buuna igu yidhi haye adeer laakiin ila soo carar oo intaan adhiga dareerinayo iga soo gaadhsii buu igu dhahay caagi baan la soo booday markaan waxoogaa socday odaygii aan soo kala tagnay yaan biyihii yara cabay ilan jidiinka ayay taagane walbahaarkii iga hayay wiilkii biyihii badnaa ee toga kacab xitaa maanan xasuusan aayar socod ma jiree waxaygu waaba orode intaan ordiba maskaxdaydu mar walba waxaan jirin bay ii sheegay oo xabadaan jirin baanan maqlaa oon leeyahay wiilkii waaba la helay bal aan soo noqdee xaggeen soo maraa ileen buruqo raad male waa meel dhagax badane ku darso oo markii hore aan soo socday nin murugaysan baan ahaaye oo dhulba maan dhowreyn dan raadkayga oon qaadi lahaa maba jirto waxaan iska boordo anoon xitaa geedaha ka gudayn wax kale iska daaye oon midiga bidix u leexanayn baan soo dardaray halkii aan wiilka kaga tegay waxyaabaha mucjisada ahaa een weli isweydiiyo een ka yaabay waxaa ka mid ah dhul ma garanayo raadkiina maan hayn waan iska ordayay haddana orodkaan ordayay geedkii aan wiilka ku tiiriyay saaxiibkay baan arkay anigoo dul taagan saab wiilkii maba joogaba oo geedku waaba madhan yahay wadna xanuun weynaa xag kastaba waan dhowray waxba waan waayey ileen intuu miirsaday ayuu gurguurto meel aan iga fogeyn ayuu geed dhex galay isagoo baa arkay markaa buuna dhagaxii soo tuuray markaasaan arkay farxad awgeed buu dhidid hor leh igu soo istaagay waxaana u imid ilaahay fadligii kiiyoo nabad qaba oon gaalaba arag waan cabbiyey biyihii madaxana waan u meedhay xitaa biyihii ayaan aad uga dhargiyey saad ogtihiinba qofka dhaawaca biyaha waa laga dhowraa laakiin anigu hamigaaba iguma jirinoo waayo ani markaas baabkaasi imaba duleelaba kayn meeshan ah ayaan isidhi bal waxaad dhadhan siiso wiilka uga soo raadi kayntii waxaan ka soo helay in yaro xabag ah iyo meydhax qansax intii xamagta ahayd baan siiyey meydhaxdiina waan axadhsiiyey annana in meydhaxa ayaan axdhay markaasuu indhihii yaro kala qaaday qiyaastii waa 10 saac oo galabnimo markaas baan ku yidhi walaal Ganayow maxaanu samaynaa geesi buu ahaaye wuxuu igu yidhi war cid jabhada yaa inooga soo sakeeya markaas baan ku yidhi walaal ree Cali Aar oo ku jira gebi xardhanihii biyaha ku lumay daaqata darmadood u dhowaa waana asaga xaafadoodiye waa tahay dhageystayaal la socda qaybta xigta qoraaga qisadani waa Abwaan Cabdirasaaq Qabi waxaan idin la socodsiinaysay anigoo ah Maryamo Xamdi waa aniga iyo bahda Weerar Media oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.